waxay ka mid tahay gabdhaha ugu quruxda badan uguna hodansan waddanka India isaguna wuxuu ahaa waqtigan wiil yar oo faqiir ah waxaana asiibay hadhcad jacaylkeeda waxay ku qaadatay nolol aad u hooseysa isagoo aan waxba haysan magac maal iyo maamuus kala toona maxaa se ugu abaalguday kadib markuu ka mid noqday mid ka mid ah kuwa ugu caansan aktarada shirkadda filimaanta samaysay ee Bollywoodka arrintan iyo xogtan oo dhammaystiran si aad u hesho fadlan dhammaystira muuqaalka hana ilaawin inaad like-garayso si uu gaadho dad badan haddii aad nagu cusub tahay ha ilaawin inaad taabato buttonka subscribe si aad ula socoto muuqaalada dambe oo hubayna ka xisaab badan yihiin kan aadna xasaasiyad u leeyihiin kulankoodii horreeyay wuxuu ahaa mid yaab leh waxay ku kulmeen waqti wadadu ay jaam tahay calaamadaha leyrka ee loo adeegsado kala hagista baabuurta iyo dadka ee lagu magacaabo street lambiska Hiritig waxuu ka mid ahaa dadkii uu jaamku ka hor yimay wadada cidhiidhiga ku noqotay sugayana ilaa wadada laga furayo leerarka kale ee dhaqaaqa Hiritig waxa uu eegay dhankiisa midig waxaanu arkay gabadh aad u qurux badan oo wadata gaari qaali ah oo sugaysa kaliya in wadadu furanto Roshan isagoo ka faa'iideysanaya fursadaas qaaliga ah ayuu ku tuuray afar erey oo saameyn leh oo muujinaya ilaaqda iyo inuu ka helay quruxdeeda ereyadaas nasiib darro ma ay noqon qaar xataa uga faa'iideysto inuu ka qorto nambarkeeda balse waxay noqdeen barida iyo barida celin oo kaliya waxaana durbadiiba dhaqaaqay baabuurtii oo waxaa bacay laambadihii kala socoshada baabuurta iyaduna waxay ka mid ahay dadka sugayay waxaanay nasiib darro ku dhaqaaqday sidaas halkaasna waa isku seegeen kulankoodii ugu horreeyay Roshan waxa qalbigiisa galay akhlaaqdeedii aamusnaanteedii dhool cadaynteedii iyo sidoo kale ereyadii quruxda badnaa ay isku tuureen intii ay meesha taagneed Susan waxay taasi ahayd muuqaalkii ugu quruxda badnaa ee ku soo noqonayay qalbigiisa intii ay kala maqnaayeen waxaanu ahaa mid fakir la mashquulsan oo gebi ahaanba iyadu ka dhex guuxaysa maskaxdiisa maalmo yar kadib ayna sidii isu arkin nasiib wanaag wuxuu ku arkay xaflad dhalasho ay lahayd walaashiisa isaga ka weyn waxay u ahayd yaab iyo lama maqal maadaama uu arkay gabadhii uu intiiba sugayay uu ka fakarayay oo joogta xafladda walaashiisa isagu wuxuu ka mid ahaa dadkii ka shaqaynaya xafladda maadaama ay walaashii lahayd waxaanu fadhiyay qaybta dambe oo uu ku nasanayay balse indhihiisa si wacan u qabtay gabadha waxaanu galay xasuusteeda waxaanu bilaabay sidii uu la hadli lahaa waxay bilowday qobka ciyaarka iyo jaaska iyadoo la haysatay heestii ka baxaysay beesha iyo xafladda waqtigaas may ahayn mid iyadoo arkaysa waxaana ku dheegagay indhihiisa isaga dadka oo dhanna waxay ahaayeen qaar ciyaaraya oo faraxsan ilaa Hiritig oo gabadha ku mashquulsanaa mooyaane waxaa la hadlay Hiritig saaxiibkii isaga oo ku yidhi maxay ayaad ka eegaysaa gabadha ma kol baad helaysaa waa gabadh reer boqora oo taajirada gabadhanu adiguna waxa tahay wiil yaroo dan yaroo faqiir ah markaa saaxiib ha niyeysanin xataa taasi waa dembiye Hiritig kamaba warwareegin kamana u labalabaynin ee waxa uu ku yidhi saaxiibkii gabadhani waxay noqon doontaa dumaashida calaashaan xaaskayga mustaqbalka waan guursan doonaa saaxiibkii waa uu qoslay isagoo ay dheeldheel iyo qosol ka tahay arrintan uu sheegay balse Hiritig run ayay ka ahayd arrintaasi waxaana uu bilaabay inuu bedelo heestii xafladda gebi ahaana waxaa soo egay dadkii xafladda ku sugnaa oo dhan waxaanu daaray hees khaas isaga u ah oo soo jeedatay gebi ahaanba dhagaha goobjoogayaashii oo ay ka mid ahayd iyadu Susan waqtiga iyadu wax aqoon uma lahayn balse waxa ku soo dhacday inay horay soo arkeen waqtiyada ka mid ah iyada laftigeedu waa la dheegagtay waana ay la yaabtay maadaama ay mar kale ku aragtay halkan uu noqday in qofka hagaya xataa rikoorka ay wax ka dhageysanayeen iyo cajaladii waxaase yaab lahayd waxa soo jiidatay Susan heestii uu daaray oo aad u dareen lahayd dadkiina waxay noqdeen qaar ciyaartoodii sii wata isaguna xaggeeda ayuu soo dhaqaaqay waxaanu soo taagay gacanta waxaanu ku yidhi ma kula ciyaari karaa sidaasna waxa ku dhex maray hadal kaftan iyo ciyaar aad u degan oo aad u qurux badan Roshan waxa dhex qaaday jacaylka sida qarsoodiga ah ku galay qalbigiisa waxaanu la wadaagi jiray dhambaalo dareen badan leh oo uu gacantiisa ku qoray wiigiiba dhowr jeer waxuu noqday mid mar walba ku xidhan oo raba inuu la hadlo Susana markan ayada ayaaba jacaylka iyo dareenku ku cuslaaday waxayna dareemaysaa dhankeeda in loo hayo ninkan oo ay ku soo dhawaanayso xiisa iyo dareen gaarana ay u qabto dhambaalada uu la wadaagayo maalin kasta
ilama ay ka sugto xataa fariimaha u soo dirayo ay la qabsataba. waxay kulmeen kulamo badan, aragtiyo badan, meelo badanna waa ay ku kulmeen, balse kulankan wuxuu noqday kulankii ugu xiisaha badnaa, saamaynta gaarkaana ku yeeshay qalbigiisa ninka la yidhaahdo Heritage. kadib markii ay ku kulmeen hotel aad u qaali ah oo very expensive oo aanay jarin cuntadiisa, Heritage waqtigan ma haysan lacag aad u badan, waxaanu moodayay hotelkan mid aad u jaban, waxayna iska dalbadeen waxyaalo aad u fara badan oo ay cuneen. kadib markii uu sidii bixina waxa uu arkay alaabtan inaanu awoodeynin, lacagta lagu soo qorina ay qaali tahay oo aad u badan tahay. waxa ku yidhi inankii mudalabka ana ku keenay lacagta ee igu qoro ama haysa qayb ka mid ah alaabooyinkayga oo iga suganiga. balse hadalkii ayuu kor u qaaday inankii mudalabka ahaa, waxaanu ku yidhi war lacagta iska bixi. waxaana u timi Susan oo maqashay warkii, lacagtiina iyada ayaa dhiibtay. xoogaa Heritage waxa uu dareemay xishood iyo hoosayn, waxaanu dareemay inuu yahay qof faqiir oo aad uga hooseeya gabadhan oo aan geyin, gabadhana ay tahay taajireed, inay la sii socotaana ay adag tahay oo xataa ay ka tegi kartaba. si degdeg ah ayuu u baxay, lamana ay soo hadlin wax gaadhaya isbuuc. intaasba wuxuu ahaa qof fakaraya oo murugaysan oo uu qalbigiisa daaray jacaylkeedu, xishoodkiina uu weli ku sii jiro oo ka fakaraya gabadha inay uga tagtay. waxaa la yidhaahdo faqiirnimo iyo inaanu waxba haysan. maalmaha ka mid ah ayay soo wacday Susana, waxayna u sheegtay inuu telefoonkii ka xumaaday, nambarkiisana uu ka baxay, balse ay si adag ku soo heshay nambarkiisa iyo xogtiisu ay ku soo raadisay. Heritage markan qalbiga ayaa u qaboobay, waxaanu ka fakarayay waxaan ahayn wixii markii hore ku fakarayay ee caqligiisa ku jiray oo ahaa inay gabadha uga tagtay faqiir inaan waxba haysan. Susan jeeb xumada Heritage wax macnaa uma ay samaynaynin, ilaa waa ay ku sii jeclaanaysay oo kaliya. waxaanay rabtay ruuxdiisa ee ma ay rabin jeebkiisa waxa ku jira, baahidiisuna wax saameyn kuma ay yeelan iyada. waqtigaas Heritage wax saameyn kuma lahayn dhanka jiliinka, waxaanu aad u doonayay inuu awood ku yeesho saaxadda jiliinka filimaanta Hindiga. ugu dambayna markay taariikhdu ahayd sanadii 2000 ayuu bilaabay jiliinka filimka Kohina Bari Hai oo ahaa filimkii ugu saameynta badnaa ee uu bilaabo. waxaanu nasiib wanaag filimkaasi noqday mid cajabiye gebi ahaanba dadkii daawaday ee indhihii arkay, sumcad, magac, adduun iyo wax kastana waa uu ka helay. waxaana filimkaasi uu ahaa hordhac in gebi ahaanba directorada ugu waaweyn waddanka India iyo shirkadda Bollywoodka ay si weyn ugu soo qulqulaan, malaayiin dollar ay siiyaan, noqdana qof sumcad iyo magac weyn leh muddo yar gudaheed. Roshan waxaa noqday mid ka caansan, ka magac weyn kana maal badan gabadhii, waxaana u soo bandhigtay xidhiidho wax ka badan 200 oo haween ah, kuwaasoo kala soo xidhay barihiisa bulshada, raadinaya lambarkiisa, xataa si badheedha ula kulmay. waxaana uu go'aansaday inuu guursado Susan isagoo ku gacan sayray hablihii oo dhan, una sheegay inuu gabadhan jecel yahay, ayna la soo martay nolol aad u adag, abeelkeeduna uu yahay inay isguursadaan, isagoo cadaynaya dareenkii dhabta ay uu qabay. waxaanay u dhashay 2 carruur ah, waxaanay ku noqdeen sida qoys buuxa, balse nasiib darro 11 sano kadib 2013 ayay si dhab u cadeeyeen kala tagooda. waxaase yaab lahayn inaanu midkoodna cadaynin sababta ay u kala tageen, ayna baraha bulshada isu soo fadhiisan oo aan iscaayin, si sharaf lana ay u dhaqmayeen iyagoo ku kala tegay weliba nolosha. balse Susana ayaa sir looga helay inay ka hinaastay gabdhaha quruxda badan ee wax la jilay Heritage, taasoo gebi ahaanba keentay inay kala fogaadaan kuna kala tagaan nolosha. Heritage waxa uu marar badan kula taliyay maadaama isaga ka tagtay noloshiisina ay go'aan ka qaadato ay ka fogaatay inay guursato nin kale oo isaga ka qurux badan kana qiimo badan, nolosheedana u turayo ixtiraamaya. maadaama uu ahaa qof jecelna, waxa uu kula taliyay nolol qurux badan, isagoo sheegay inay ahayd gabadh ugu dulqaadka, akhlaaqda iyo qiimeynta badnayd, qof yada la mid aanu helin noloshiisa. waxaa la weydiiyey su'aalo badan iyada Susana, iyadoo la yidhi ma isku noqon doontaan Heritage, waxayna tiri labada qof haddii ay kala tagaan muhiim ah inay isku noqdaan, balse waxa naga dhaxeeya wax ka weyn xidhiidh, waxa naga dhaxeeya wax ka weyn guur oo ah ubad. waana kulanaa mar kasta, waxaanu la dhaqmaa carruurtiisa sidii aabahooda guriga uu joogo, mana nihin dadku kala fogaanaya nolosha, balse xidhiidhkaygii guur ayaa dhammaaday oo kaliya. sidoo kale waxa uu sheegay xidhiidhku inuu yahay ixtiraam, dhowris
iyo xushmayn taasna ay ka mudan tahay Susanna. haddaba daawade waxay tahay su'aasha aan ku weydiinayaa, maxay tahay dadka caanka mar walba inuu burburo xidhiidhkoodu ayna u kala fogaadaan? mase odhan karnaa dadka caanka ayaa xidhiidhadoodu ku khatar badan yihiin dadka aan caanka ahayn? sidaas ayaad u aragtaa nolosha ay soo wadaageen Heritage iyo gabadha la yidhaahdo Susanna? fadlan ha ilaawin inaad laygarayso muuqaalka si uu helo daawasho badan. hana ilaawin sidoo kale subscribe inaad saarto channelka si aad ula socoto muuqaalada dambe oo huba inay xiise gaar ah leeyihiin. sidoo kale waxaad hoos igula wadaagi kartaa commentiga muuqaalada aad jeceshahay inaanu kaaga soo diyaarino iyo waxyaalaha aad xiisaynayso inaanu wax kaaga soo tabino aan kaaga soo diyaarino. aad ayaad u mahadsan tahay inaad nala soo gaadho dhammaadka muuqaalka.